محمدا عبده ورسوله دعadaas fudud waxaad ku helaysaa ajarkaas weyninka badan oo ah 8 albaabood jannada in lagu furo midka aad rabtidna in aad ka gashid si faafi asxaabtaadana si ay ugu faa'iideystaan qabatay oo tii dagaalkan wuxuu noqonayaa saddexdaas mid waxa kamid ah saddexdaas aad sheegtay inuu noqdo dagaal shaamil ah oo Iran ay soo gasho maanta halkaas taagantay dagaalkii Iran waa ay soo gashay Tel Aviv waa la duqeynaya duqeyn baa ku socoto arintaas ayada ah oo aad sheegtay maalintii hore maadaama uu saddexdii mid noqday hadda taasaan jeclaan lahaa inaad dib dadka u xasuusiso aadna ku noqoto oo shaamilkii maadaama uu noqday falanqeyn aan ku soo galno اوكي horta waa runta jazaak Allah khair sheekh waxaan sheegnay maalintii ku dambeysay weeyaan usbuucii hore weeyaan gartay markii aan taxliilay dagaalkii ragii beejarkii lagu laayay wali hadda marka waa nool yahay markaan hadlayna xasan nasrallah halkaas khudbadiisina waan taxliilinay sax waxaan oranay marka saddex shay mid uma dhici doonta inuu dagaalku sidii uu ku ekaada maxaan radaa xisbullah iyo Israa'iil sidoo uu eegyahay Hamas iyo saaxadaas bas uu ku ekaado maya inuu dagaalku noqdo dagaal maftuuxa oo saaxaadkoo dhan gaadha laakiin aan noqon shaamil amba inuu noqdo dagaal shaamil oo Iran ay soo gasho oo bariga dhexe uu ololo inuu ka noqdo kiibuu nimika u dhawaaday anagu marka waxaan oranay ka horana maaha shaamilkana waa ka soo gaabineed ka dhexdaan qaadanay laakiin ka shaamilka maxaa soo geliyay laba arimood soo gelisay waxaa soo geliyay dowladda Iran markii la dilay Ismaaciil Haniya bayna jawaabin Ismaaciil Haniya waa la dilay waxa lagu dilay wadankeega martibu u ahaa bayna jawaabin madaxweynaheegii hore waa la dilay diyaaraddu way la qarxadeen waa iska hadalunay waa la dilay kama ayna jawaabin waxaa la dilay safaaradeedii waxyaab bay kaga jawaabtay maantana waxaa la dilay ninkii ugu istiraatiijisanaa ay haysatay bariga dhexe xasan nasrallah waliba lama dilina waxaa la dilay dhammaantood baa la dilay waxaana lagu dilay si aan caadi ahayn baa loo dilay ilaa 20 isku xigtay waxaa loo isticmaalay غير caadi ah waxaa loogu tagay dhulka hoostiisa 6 iyo 10 dabaq يعني بيها هم بير كسر باش لبنان وبط بيرود وبط بط هم بير كسر ماشي الله ugu tagay markii la faqay marka halkaas hubku uu ku gaaray in kastoo hubku gaaray laakiin waxa dilay baadhay laba shay waxa dilay sadma wax dhado jirkiisa isku yaa la helay maradka dilay waxa dhadaa waxa shoog dhacay iyo argagax dhacay yaa dilay waxa ku dhacay waa 400 iyo 80 kilogram madfac xabadiiba ay tuuraysa markaasi sawaariq inta laga lagu ahay meesha marka waxa ku dhacay sadmada ayaa dishay macnaha marka la soo ridayay qolalka caadiga kuma san jirin meel hoos u jiray meel hoos u jiray in loo tagay adag tahayba marka guudi iyo argagixii dhacay ayaa dilay xoogga mid kale imika la helay waxa la leeyahay dhakhtaradu waxay leeyahay ikhtinaaqna ku dhintay maartay neefti maxaa yeelay wuxuu la geliyay qol naqaska ka soo daba galay qiiqi qolka marka wuxuu waayay oxygen ilaa wixii oxygenka meesha geenay yaa baabay oo waxa dhama qarxay wixii oxygenka meesha geenay u qarxay markaasi taasina way keentay yalla marka uu dhintay wuxuuna ku dhintay sida argagaxada leh marka Iran maxaa ku dhahdaa mayna soo galin ma jawaabin ilaa ma jawaabin baahin marka taasi waxay keenaysay in macrakada shaabil ka dhigto taas aad dajisay markaas aan arinta labaad ee dajisay waxa weeyaan macrakada shaamil ka dhigtay waxa weeyaan mid muhiim ka jiddan waa arinta keensatay in xisbullah la garaaco garaacis aan caadi ahayn taariikhda soo marin oo qof loogu tagay waxaa la dilay 25 nin oo hoggaanadii waliba hoggaanadii waaweyneed ee xisbiga xukumaysay iyo kuwii ciidanka xukumayay iyo kuwii muqaabaraadka xukumayay iyo kuwii hubka soo iibinaya calaaqaadka iyo bay'ad mushtarakaba
wixii oo dhan waa laga takhalusay gartay marka taasi waxay keentay in la yidhaahdo inay xisbulla uu iswaayo muddo 3 cisho ah way kala go'aan arrintaasi marka inta taxliilka waan geli doonaaye maxaa shaamil ka dhigay labada shay baa shaamil ka dhigtay marka waxay isticmaalaysay dowladda Iiraan waxa la yidhaahdo sabir لأنه waxay ku jirtay استراتيجية التحوط inay maartay isgaabin bay ku jirtay isgaabintii intay soconay marka iminka waxay qaadatay istaraatiijiyad kale oo yaab badan oo halkan ku soo qoray oo maartay oo cajiiba miiska la dul fadhiyo Soomaaliya miiska waxa la taawila siyaasiya waxa la soo dhigaa waxyaalada lagu maransan yahay la soo dhigaa إيران waxay isticmaalaysay madaxweynahan cusub intii la doortay diblomaasiyad ina dagaalka Xamaas la joojiyo in hagal la joojiyo in iyadna nuclear-keegi loo fasaxo inay ninkan waa nin bidaxa oo degan oo oday ah ninkan madaxweynaha noqday taasoo waday ilaa hadda markuu uu ku raagay maartay Washington iyo New York sheekun la waday marka isaga waxaa la yiri diblomaasiyad naacima oo la dhahdo diblomaasiyad farisiya tii Persian ku isticmaalayay waxaa markaa miiskii baasha la dhigay wuxuu yidhi madaxweynuhu kelmad cajiiba wuxuu yidhi Maraykanku uu nadagay wuxuu ii ballan qaaday in dagaalka Xamaas la joojiyo iska daatii la joojiyay Libnaan baa la galay marka uu nadagay buu yidhi marka qolada kale ee midigta ah ee xaraska ilaalada baarta tawrada iyo odayga madaka xukuumay Khamenei waxay wadeen wax la yiraahdo al-quwa raadica war awood ma ka ciisa marka waxaa la isku waafaqay in miiska labadiiba la saaro maanta وفعلا haddii ay bilaabi lahaayeen hadda duqeynta ay Tel Aviv ku bilaabeen Xasan Nasrallah oo nool ma la dilay hatta markii haniila dilay bilaabi lahaayeen bal lama dileen marka al-quwa raadica wal harb labadii quwadii wax ka cilinaysay dagaalka xoog badan oo tanimika ay sameeyeen iyo diblomaasiyadii in labada miiska la keenay la isku waafaqay هذا واتيم واحد شغالس قرتي شكرا شيخنا USA دولكان maraykanka hadda sidee ayagu u arkaan hadda aragtidooda waa sidee ku aadin dagaalkaas maxay isbedelay horta mid hayra sheego Netanyahu muxuu ka doonayaa Libnaan waa su'aal muhiim ah Netanyahu waxaa jira buug la yiraahdo buug cajiib ah jira oo imika la qoray buugga waxaa la yiraahdaa mandiqul baqaa siyaasi loojiga ku harka siyaasadahan inaad kursi ka kiciba ya arin maraan Ismaaciil marka hadlayno ka doonay waa buug dhan buuggaas waxaa la qoray 2023 waa mandiqul baqaa siyaasi inaad weligaaba ka tagin kursiga joogto iyaga maxaa lahayn waa 6 iyo 30 sano wuxuu joogo marka siyaasadda ku soo noqon ka dhacay ku soo noqon dhacay imikana waxa lagu hayaa dunuub waaweyn oo maxkamad geynaysa oo cumri dayn lagu xukumay xisbadayn xabsi dayn laakiin muxuu kaga baxsanayaa lama shay inuu sameeyo kaga baxsanayaa inuu Israa'iil dagaal geliyo lambaroon weeyaan dagaalkaasina uu noqdo dagaal weyn oo laba mid keena inaa la guulaysto amba la fashilmo oo wax la xisaabiyo la garan waayo wala baroon labada taraf buu ku badbaadi karaa isaga dhexda u daran arinta labaad uu wada waxa weeyaan in uu noqdo maalinta rasheene Ben Gurion asaasihii labaad ee dawladda Israa'iil si uu arinta u gaaro wuxuu dejiyay 3 istaraatiijiyadood wuxuu dejiyay istaraatiijiyad magaceega la yiraahdo istaraatiijiyatu sadma waa inaad dadka shock ku abuurto waa inaad garaacdid dadku waa inay baqaan sadma shock waa inuu abuuro laba wuxuu bilaabay radci inuu yiraahdo Israa'iil ninka doonta meesha aad joogtaa waa ka xuduudo weeraray ee soo baabiyay meelihii gaaska lagu kaydinayay Iiraan oo sheegay imika waxa la qorayay waqti dhow meelo bariga dhexe ku yaala ayay diyaaradaha Israa'iil soo garaacay doonaan marka radcigaana uu qaatay arinta saddexaad uu qaatay marka waa muhiim Israa'iil wixii lagu yaqaan ka baxay maxay ahayd Israa'iil laguma aqoon dagaal dheer oo galay Israa'iil laguma aqoon dad laga xidhay inay ilowdo iska iloobi Israa'iil laguma aqoon qof Israa'iiliya la qaaday in uu isagu dilo uu dilay
dadkii halkaa ayaa weer buu qaaday uu isla dilay marka meydkooyin buu soo qaadanaya bas khalaas wuxuu ku leeyahay waddanka difaacayna wax Israa'iil dadka Israa'iil ma ogolaan jirin inay gudaha inta ku qaxooteen muddo badan ay ka maqaadaan dhulkoodii uu sameeyay wixii lagu yaqaan Israa'iil uu bedelay marka wuxuu abuuray waxa imka la qorayaan Israa'iil cusub marka Netanyahu wuxuu rabaa taas uu rabaa haddaan u imanno su'aashii ahayd Maraykanka mowqifkiisa waa waadix weeyaan afar istaraatiijiyad bay leedahay afar lugood waa miis afar lugood ku taagan lugta koowaad waxaa la dhahdaa Israa'iil awalan Israa'iil first النفط ثانيا بترولك يا غاسكنا waa number 2 waad garatay ma arrin saddexaad bay ku taagan tahay waxay ku taagan tahay masaalixu Amerika fi sharq al-awsat oo ah madaxdan khaliijku inay madax si ahaadaan saalisan iyadna waa saddex an la tantahi al-harbu waa afar dagaal dhamaadana ma rabaan afarta istaraatiijiyadood say oday uga noqdaan oo xalxaliyaan oo marjici u ahaado referenski loo soo noqonay Israa'iil waa in yaro aabale amba in yaro aabale dadka ku soo booday soo ciyaartay soo layso bay kugu soo noqonaysaa waxa la ma weydiba nin weyn oo Mareykanaydi intay gardarro gashay ku leedahay kaaliga cisha ilaa goormaan siyaasadda ku jirna nin Mareykanay oo rafiic mustawa ayaa sayid marka waxaan kaaga jeedaa wax weeyaan afarta lugoodi waa muhiim siyaasadda Mareykanka gaasku batroolku waa muhiim khaliijku wuxuu muhiim yahay waa batroolka madaxda khaliijku waxay muhiim yihiin batroolka dul fadhiyaan soo socotid Nufaysa mar wuxuu sheegay wuxuu nin yahuudi oo safiirka ahaan jiray ingiriiska oo ahaan jiray Kuwait baan la kulmay wuxuu yidhi buuri ma uu caayay buuri khaliijku caayay waan xoreeyay buuri war isla xishoon dawladda waxa aysaa waa weyn oo muhiim ah aysaa wuxuu yidhi buuri dawladda jira meesha kiistishino oo gaastishino oo aan soo marna baaratay markabka ama safiinada gaaska ka qaadana waa iska dhaafnaa macna kale ma jiraan buuri waa kaas arinta labaad waa taawil arinta saddexaadi waa niga sheegay waa inayna dagaal ku dhamaan madaxana waa la ilaaliyo intaas buu ka shaqeeyaa Mareykanka maxaa markaa meeshan ugu jira maanta mowqifkiisa maanta muxuu yahay ya mowqifkiisa wuxuu ku leeyahay dagaalku waa inuunan dhicin laakiin hadday Israa'iil wax kasta ay waxayso ma cambaarinay laanna awalan marka Israa'iil la weerarada wuxuu ku leeyahay Israa'iil difaacigu waajib uu yahay iyo waajib ku yahay labada xisbi laakiin Netanyahu muxuu ka shaqeynayaa baashaas waa muhiim Netanyahu wuxuu ka shaqeynayaa dagaalku inuu socdo ilaa doorashada Mareykanka laga gaadhiyo si Donald Trump soo noqdo hadday soo noqdo gabadho hadday madaxweyne noqoto dagaalku dhamaanaya si maanta la ku sheegay Twitterkeeda ku soo qortay maanta uu dhamaanaya dagaalku ninka labaad hadduu madaxweyne noqdana wuxuu doonayo u dhamaanaya sidoo Netanyahu rabo ayuu u sameeyaa gartay marka wuxuu sugayaa wax weeyaan inuu doorashada Mareykanka la gaaro walidaalika Mareykanku maanta Israa'iil muddo socda فعلا سعودي قلت كي يسوي كسمين يا نتنياهو maxay noqotay دهان ترامب بيربان maxay noqotay wuxuu noqday an talida al-amatu rabbataha Israa'iil waxay ahayd ilmi yar ay dhaleen adoon bay u noqday marka reer galbeedkii gaar ahaan Mareykankii uu daba socdaa wuxuu u socday ku socdaa marka Mareykanka mowqifkiisu waa sidaas weeyaan gartay sheekhana sidoo kale waxaan u baahan falanqayn aragtida iyo mawaaqifta China iyo Ruushka labadoodaba ay ka istaagayaan halkii ay ka taagan yihiin hadda xaaladan taagan Ruushka China iyo horta dagaalkani ka socda bariga dhexe ee Gaza ka bilaabay saddex arrimood horena waan uga hadalay xaggan aan dhigno number 1 dagaalkani wuxuu sameeyaa mustaqbalka dunida oo dhan ولذلك وحال الدراسية العالم ما بعد غزة الدوق سوء كان دونه غزة كدب قضية استراتيجية وين ولا دراسية وين أرنت الله بعض مهم كأروح وين محاكو هذا مركز روسيا ومريكاني أديكتي عند روسيا شينا دجال كأي كجيران
ruushku iyo maraykanku waa dagaal sifri ah shiinaha imika putin wuxuu yidhi hadduu igu dhaco madfac lagu soo sameeyey wadanada reer galbeedka ah sida imika israa'iil garaacdo kale hadduu igu soo dhaco nuclear baan tuurayaa waa sifri dagaalku waa zero laskuma qoslayo ايش قدام بيجي تاجين jaynuhuna wuxuu rabaa inuu maraykanku dhooqadan sii joogo dagaalkuna sii dheeraado ودي قال له هذا كلام oo isaga laga mashquulo isaguna ujeedadiisii u gaadho waa arrinta labaad arrin saddexaad oo muhiima jirta arrin saddexaad ee muhiimka waxa weeyaan jaynuhu wuxuu wadaa awoodaha bariga dhexe joogo dhan inuu cilaaqaad la samaysto uu noqdo ka bedilaya maraykanka beritole hadduu maraykanku naxiifo marka wuxuu ka shaqeynayaa isagoo jaynuhu taabuu ka shaqeynayaa waxaa la leeyahay ruushku wuxuu ku dhooqadii waxaa dishay afghanistan soo maahin يس maraykankana waxaa laga yaabaa dhooqada israa'iil inay disho ambase ay naxiifiso عاطيسو ambase macno kale haddaan siino ambase aragtida dunidu ay ka leedahay maraykanka iyaduna caata noqoto oo la idhaahdo maaha awoodii aan isku halayn karayn laiskuma halayn karayo waxaas oo dhan jaynaha iyo ruushku way ka shaqeynayaan marka gargaar fara badan oo huba ayuu ruushku siiyey wadanka iiraan iiraanna gargaar fara badan bay siisay ruushka diyaaradaha bilaa pilotka ah ee dagaalama daroomka waxaa aada uga iibisay iiraan jaynaha oo ruushka ruushkuna wuxuu ka iibiyey hub waaweyn markii 2 bilood ka hor bilya bar ka hor waxaa laga sheekeynayaa inay diyaaradaha hawadu ay kala go'i waayeen muddo usbuuca hub bay sideen waxay keenayeen taaraan marka taas waxaa kaloo jirta hubka la dhahdo dhulka ard oo 2,000 oo kilomitr sameeya iyo Pakistan oo keentay Iran oo qaadi kara nuclear kuma jirto laakiin waa hubkii waa keentay waxaa la dhahdaa ard dhul yaa la dhahdaa dhulku ka baxa dhulku ku qaraaca ma aadna uma sara kaco sanbusaan u kaca waa 2,000 oo kilomitr buu gaadhaa marka Iran hadii la soo tuuro Israa'iil u gaadhaya Falastiin ku dhacaya marka taasina Pakistan baa ka iibsay marka Pakistanna cilaaqo hoosa bay jeenaan leedahay oo dhaqaalaha oo fiican cilaaqo istiraatiiji waa leedahay Shiinaha marka waxaas oo dhan baa yaa jira oo ah maaragtay mandiqada ka shaqeynaya waxaa loo yaqaanaa الرمال المتحركة على هذا عرض دقائق marka saxaraga markaa socotay maartay ciida gurgurta hada marka rimaalkii waa mutaxarig isma taagin fahanka ma kugu adag yahay waxa la hayaa mahdi ha noqoto ama diini ha noqoto qof uu fahanka ku adag yahay ma tahay markii dhanka waxbarashada la imaado aan dhaqso wax fahmayn oo ku rafaadaya waxbarashada la tacaalay ma tahay hadaba ducadan adaa lagu talagalay ilaahay ba waxbarashada wax yar fudud kaaga dhigay ducadan ku duceyso mar walba salaad aad tukatid ducadan ku duceyso waqtiga inaan ka lumiyo marabo ducadan toos u aadayna allahumma سلام بعد إيسا دقيسو اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني هذا دعاء معناه متقانا اللهم يا معلم إبراهيم إله يو معلنك إبراهيم الله معلنك إبراهيم أها نبي إبراهيم عليه السلام الله معلنك أها ونبي إبراهيم إلهي البحو بري حكم فرب ضنبو بري وحيالا فرب ضنبو إلهي بري ويا مفهم إبراهيم ويا مفهم سليمان الله نبي سليمان وحي فهنسي نبي سليمان إلهي وحي رب ضنبو فهنسي وحلا يغشي كان كرباها دعاء سكو دعيسو فهمني يا ديسا علمني إلهي وإبر إلى الله نبي إبراهيم وحبرو إلهي وإبر الله نبي سليمان فهنسيو إلهي فهنسي دعاء صاصي كان عيان طاي marka ku celcelis mar walba salaad aad ku duceyso insha Allah Ilaahay baa ku fududeyn doona salaam alaykum qofka walaalkana gaarsiin